54 sano kadib Soomaaliya maanta waxa ay ka mid noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Haddaba maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed ka mid noqoshaha Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay? Sidaan wada ogsoonahay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa meesha kaliya ee lagu jaangooyo laguna jiheeyo siyaasadda caalamka. Waxaana uu ka kooban yahay 15 xubnood oo 5 ay joogto tahay. waxayna kala yihiin 5 joogtada ah: Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska, iyo Chinaha oo booska shanaad ku hantay awoodiisa military iyo tiisa dhaqaaleba. Soomaaliya waxay hadda ka mid tahay 10 xubnood ee aan joogtada ahayn, taas oo ay ku meteli doonto bariga Afrika muddo 2 sannadood ah oo ka bilaabata bishan January 2025 ilaa 2026. kadib 1971 ayay ahayd markii ay fursadan oo kale ay u heshay booskan Soomaaliya. taas ayayna indhaha caalamku u arkaan saaxadda dib u soo laabashada Soomaaliya iyo indhaha caalamka xilli aanay ku baraarugsanayn bulshada Soomaaliyeed taas oo isku birsanayaan arrimo qabiil. haddaba ku biirida golahaas dalkeena Soomaaliya muxuu u soo kordhin karaa? qodobka koowaad ayaa ah Soomaaliya inay awood u yeelan doonto qaraar kasta oo iyadu ay gacanteeda ku soo qorato lana iman doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halkaas oo laga dooni doono loona codayn doono. sidoo kale in Soomaaliya looga dambeeyo oo looga daba fadhiisto ammaanka iyo siyaasadda bariga Afrika oo iyadu ay ku metelayso booskaas. qodobka saddexaad ayaa ah Soomaaliya in ay codayn karto, waxna diidi karto, waxna yeeli karto. sidoo kale wadankeena Soomaaliya wuxuu chance u heli doonaa inuu la fadhiisto wadamada waaweyn si uu uga hadlo arrimihiisa gaarka ah sida amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo mashaariicda caalamiga ah. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah fursadaas 2 sano ah ma ka faa'iidaysan doonaa dalkeena Soomaaliya? aragtidaada noogu reeb dhanka faallada. waxaan ahay Ficil Burkud Didi, waxaad nagala socotaa baraha bulshada aan ku leenahay social media sida Facebook, YouTube-ka iyo TikTok. The national flag of Somalia. Good afternoon, distinguished colleagues, esteemed representatives and honored guests. I extend my warmest greetings and New Year wishes. It's with a profound gratitude that I acknowledge Ambassador Omarov, the permanent representative of Kazakhstan, for his distinguished initiative in arranging this flag ceremony and today's significant moment. I extend my warm congratulations to Ambassador Amar Benjama, the permanent representative of Algeria, upon his assumption of the Council's presidency for the month of January. As a proud member state of African Union, the Arab League, and Organization of Islamic Cooperation, we are profoundly conscious of the sacred trust placed in our nation and the weight of responsibility that accompany this mandate. Speaking on behalf of the Somali people, under the distinguished leadership of His Excellency Dr. Hassan Sheikh Mahmoud, the President of the Federal Republic of Somalia, I hereby affirm the Somali's membership in the Security Council shall be steadfastly guided by the principles enshrined in the UN Charter and the fundamental tenets of the international law. We pledge our unwavering commitment to the advancement of peace and security and to preservation of the sovereign territory. Integrity and political independence is for all member states of the United Nations. Somalia stands resolutely committed to fostering close cooperation with all Council members in the pursuit for a better world and better future for all.